shantii telefoon ee ugu wanaagsanaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 soo baxay kuwee ayay ahaayeen. muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa shantii telefoon ee ugu wanaagsanaa ee sanadkan soo baxay. shantan telefoon aniga ayaa soo xushay oo waa aragtidayda, idinkuna waad igu raaci kartaan qayb ka mid ah, qayb kalena waad igu diidi kartaan. موبايلك كواد ee ah موبايلك ugu wanaagsanaa ee sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 soo baxay waa telefoonka ay Samsung soo saartay bilowgii sanadkan ee S23 Ultra. waan huba qayb badan oo idin kamid ah wax dhahaysaan war aawe telefoonka iPhone 15 Pro Max ee dhowr bilood ka hor soo baxay. ukaadi ayaan idin leeyahay waxaana idin sabaynayaa sababta aan telefoonka S23 Ultra uga dhigay telefoonka ugu wanaagsan ee sanadkan soo baxay. telefoonkan S23 Ultra kaamiradiisa inaba caadi ma ahan, gaar ahaan kaamirada zoomta oo waxaad awood u leedahay 200 oo megapixel in aad soo dhaweysid, yacni shay halkaas oo kale ka yaala ayaad awood u leedahay inaad soo dhaweysid oo aad aragtid. sidoo kale kaamiradiisa habeenkii markaa wax ku duubaysid ama wax ku sawiraysid aad iyo aad ay u tayo sareysaa oo ma ahan sida telefoonada qaybtood oo habeenkii kaameradoodu ay aad u tayo liidato. S23 batterigiisa aad ay u tayo wanaagsan yahay. sidoo kale telefoonkan shaashadiisa ama dhaladiisa kore waxa ay ka samaysan tahay dhalada loo yaqaano Gorilla Glass oo ah shaashad aad u adag oo hadduu dhulka uu kaaga dhaco uusan horay u jabayn. telefoonka labaad ee ugu wanaagsan ee sanadkan soo baxay waa iPhone 15 Pro Max, gaar ahaan nooca ka samaysan maadada titaniumta loo yaqaano. iPhone 15 Pro Max ayaa sanadkan waxyaalo badan lagu soo kordhiyay, sida tusaale ahaan in batoonka yaraa ee geeska ku yaalay ee silentida qaabilsanaa markii hore in hadda laga dhigay inuu hawlo fara badan oo kale uu ku qaban karo. Apple ayaa sanadkan soo kordhisay sidoo kale processorkeeda cusub ee A17 kaas oo isticmaalka mobilka iyo xawaarihiisaba fududeynaya. iPhone 15 Pro Max ayaa tayada kaamiradiisa aad u tayo sareysa oo ay aad u wanaagsan tahay, laakiin la soco weli ma gaaro dhanka zoomta telefoonka aan hore u soo sheegnay ee S23 Ultra. FPS-ka ama frame per second-ka shaashada telefoonka iPhone 15 Pro Max ayaa waxay tahay 120 Hz, aad bayna u wacan tahay. telefoonkan ayaa storage-kiisu wuxuu ka bilaabanayaa 256 GB ilaa 1 TB ayaad heli kartaa. qiimaha telefoonkan ayaa sidoo kale wuxuu ka bilaabanayaa $1,200. telefoonka saddexaad ee ugu wanaagsan ee sanadkan soo baxay waa telefoonka Samsung ay ku farayareysatay ee Galaxy Z Flip 5. telefoonkan ayay Samsung sanadkan shaashadiisa dambe xoogaa soo ballaarisay oo waxay soo gaarsiisay ilaa iyo 3.4 inch. yacni Samsung waxay ugu talagashay telefoonka oo isku laaban in qofku gadaal applicationadiisa ka isticmaali karo, fariimaha ka dirsan karo, muuqaaladiisana ka daawan karo. telefoonkan wuxuu hogaaminayaa dhammaan telefoonada isku laabma oo dhan. telefoonkan wuxuu ku shaqeynayaa processorka Snapdragon 8 Generation 2. batterigiisa waa ilaa 3700 oo mAh. telefoonkan kaamiradiisa aad ay u tayo sareysaa. qiimaha telefoonkan waa $1,060. telefoonka afraad ee ugu wanaagsan ee sanadkan soo baxay waa Huawei Mate 60 Pro. Huawei ayaa sanadkan wacdaro soo bandhigtay kadib markii ay muddo sanado ah u xanibnayd cunaqabatayntii cusleed ee uu Mareykanku ku saaray. Huawei ayaa sanadkan inta badan ka maarantay tiknoolajiyadii reer galbeedka oo iyadu samaysatay in badan oo ka mid ah tiknoolajiyadii cunaqabataynta laga saaray. Huawei Mate 60 Pro ayaa raamkiisu wuxuu yahay 16 GB, maskaxdiisuna waa 512 GB. dadka telefoonada Huawei wata ay aad ku xiiseeya ayaa telefoonkan si weyn ula dhacay oo aad u soo dhaweeyay. batteriga telefoonkan ayaa aad u wacan, waana 5000 oo mAh, waana fast charging 80 watt dabka ku qaadanaya. qiimaha telefoonkan ayaa wuxuu yahay $1,250. telefoonka shanaad ee ah telefoonka ugu wanaagsan ee sanadkan soo baxay ayaa wuxuu yahay telefoonka Xiaomi 14 Pro. shirkadda Xiaomi ayaa sanadkan si weyn suuqyada caalamka u qabsatay kadib markii ay soo bandhigtay telefoonkeedan Xiaomi 14 Pro. telefoonkan ayaa waxa uu leeyahay nooc sida iPhone oo kale ah oo ka samaysan maadada titaniumka. telefoonkan ayaa wuxuu ku shaqeynayaa processorka Snapdragon 8 Generation 3. telefoonkan batterigiisa ayaa wuxuu yahay 4880, waana fast charging oo 120 watt ayuu ku qaadanayaa chargerka. telefoonkan ayaa wuxuu ku yimid 2 RAM oo kala ah RAM 12 GB iyo RAM 16 GB. qiimaha telefoonkan si sax ah ma u garanayo, laakiin wuxuu u dhaxeeyaa $800 ilaa $900. su'aal yar oo kooban, adigu ma igu raacsan tahay aragtida ah in telefoonka S23 Ultra uu yahay telefoonka ugu wanaagsanaa ee sanadkan soo baxay? lana soo bisha soo socota waxaa soo socda isna oo Samsung ay soo saaraysaa telefoonkeeda cusub ee S24 Ultra.